goobta aad ku nooshahay waxay ka qayb qaadan kartaa degganaanta naftaada iyo raaxada qalbigaada. waa sida uu sheegay jilaaga weyn ee Hindiya ee Sunil Shetty. inta badan waxaa muran dhaliya sawirada jilayaasha caalamiga ah qaar ka mid ah kolka la arko ayagoo da ahaan weli dhalinyaro u muuqaal eg, balse aad daawan jirtay filimadooda adigoo da'yar, maantana la moodo inaad adigu ka horgabowday. Sunil Shetty deegaanada dhulka Soomaalida waxaa loogu yaqaanaa magacyo kala duwan. aktarkani maanta waxa uu jiraa 62 sano, balse su'aasha ugu badan ee ku soo noqotaa waxay tahay, mudane, maxay tahay sababta da'daada dib u dhigtay oo ku ekeysisay wiil yar? si aynu su'aashaasi jawaab ugu helno, bal marka hore aynu soo booqanno guriga uu ku nool yahay jilaaga. ayna u raacno gudaha guriga, feere gaar ah u yeelo naqshadeynta dhismaha guriga loo dejiyey. halkani waa qaybta nasashada, waana goob cagaaran oo lagu wareejiyey dhirta iyo iftiinka cadceedda. markaad halkan taagan tahay, waxaad awood u leedahay inaad fiiqdo saqafka kore ee guriga si aad u hesho shucaaca cadceedda maalintii, ama aad u daawato xidigaha iyo dayaxa habeenkii. marka bannaanka loogu baxa guriga, waxaa hoostaada qulqulaya biyo iyo geedo qurux badan oo buuxdhaafshiya hareerahaada. dhammaan guriga qalabka yaala waa mid loo ekeysiyey qadiim ama dhaqankii saxda ahaa ee Hindidu isticmaali jirtay waayihii hore. guudka sare aynu ka eegno halka uu ku yaala qasrigani waxa uu ku yaalaa koonfurta Mumbai, waana dhul buuray cagaar isugu jira, waxaana daris dhow la ah taajirka ugu weyn ee Asia, Mukesh Ambani. waana sababta jilaagan uu u doortay deegaankani. cimrigiisu inaanan isbedelin wuxuu sabab aga dhigay ku noolaanshaha goobahan cimilada degan ee cagaarka ah. Sunil Shetty hadda waa actor, waa producer, waana ganacsade weyn, waxaana uu leeyahay TV show, waxaana uu jilay in ka badan 100 filin. filimkiisii ugu horeeyay Number 1 waxa uu soo saaray 1992. Sunil Shetty waxa uu dhalay wiil iyo gabar oo lagu kala magacaabo Ahan iyo Atya, oo labaduba waa aktoriin, waxay dhahayaan wadadii aabahooda. jilaagani sanadkii la soo dhaafay 2023 dhaqaalihiisu waxa uu gaarayay 125 karoor oo u dhiganta 15 ilaa 16 milyan oo doolarka Mareykanka ah. haddaba daawade, aan ku weydiiyey, haddaad halkan la soo gaartay, magacee loogu yaqaanaa jilaagani deegaankaada?